anigoo ah taliyaha saldhigga degmada Beledweyne wuxuu ku saabsan yahay amniga degmada Beledweyne. awalan waxaan u soo jeedinayaa ammaan iyo bogaadin shacabka Hirshabeelle khaasatan degmada Beledweyne oo ah dad aad nabad u jecel xushmeeya wada shaqaynta jecel degmadu inay meel nabadgelyo noqoto. waxaan u soo jeedinayaa ammaan buuxda. haddaan u soo noqdo shaqada degmada Beledweyne waxaad moodaa in ayaamahan waxyaalo fara badan oo shaqo ah oo looga baahnaa ilaamaha amniga inay waqtigan soo gaarto inaan ka qabanno shir jaraa'id si aan ugu digno ummadda degan degmada Beledweyne. wuxuu ku saabsan yahay shirkeenu badqabka iyo ammaanka degmada Beledweyne. ammaan ilaaha bixiya laakiin inaguna dadaalkeena ma ka reebanayno waxa uu Ilaahay qoray way dhacayaan laakiin ma ogolin in dadaal xumadeena wax ku dhacaan. haddaan u soo noqdo degmada Beledweyne waxa ayaamahan ka socday dad qoryo wata oo saaran bajaajyo isla markaana dadka habeenkii markay hoydaan ama magaalada ay aadaan ama xaafadooda aadaan ama masaajida aadaan ku dhaca bajaajadaas ayagoo wata qoryo iyo qaar wata midiyo. sidaa daraadeed waxaan rabnaa inaan ka soo saarno awaamir ku saabsan dadka waxa sameynaya. awalan ciidan ku helno ayagoo wax dhacaya waxay wax ku dhaceen ama qori ahaato ama midi ahaato waa la wareegaynaa. cid ka daba imaan kartaana ma jirto. maxaa yeelay cid rabtaa ma jirto in ilmahooda markii suuq u soo dirsadaan la dhaco. qofka san nabadgelyo rabtaa marka hubkaas lagu dhacayo waa hub bilaa sharci darro ah. sidaa daraadeed hubkaas waa la wareegaynaa shacabka lagu dhacay haddaan qabanno waa saan u la wareegnay. qof kastoo timaadana kama yeelayno waa hubkayga waa qorigayga waa laga soo xad xataa ka yeelmayno. waa in qof hubkeeda ay meel dhigato ay ku kalsoonta. waan ognahay magaalada hub baa ka buuxa weli dawladdu hubka dhigis ma samayn. sidaa daraadeed waxaa laga rabaa qof walba qorigeeda inay meel dhigato ama gacan amaana ay u dhiibato. laakiin haddii tiraado wax ku soo dhaca ama ay wax ku dhacdo hubkaas waa la wareegaynaa. midda labaad bajaajkii wax dhaca oon ku helno in wax lagu dhacayo ama wax lagu kufsanayo ama gabdho lagu kaxaysanayo waa la wareegaynaa iyadana dib dambana loogama daba imaan karo. waa saan u la wareegnay. haddaba laga waantoobo haddii jirto cid noocaas waxaas ku kacda maanta laga bilaabo taariikhdu tahay 11 bisha shanaad wixii ka dambeeya waa ka howlgalaynaa waana la wareegaynaa intaan soo sheegay cid lagu qabto. talabaad baabuurta madmadow bensolka ah ee magaalada lagu soo geliyo khamrada daroogada waxyaalo badan oo ka torobaana amaan xumada ka qaadata kaalinta ugu weyn ka qaadata baabuurtaasna waa inay si degdeg ah soo diiwaan galiyaan. waa ka fiiqaynaa haddii muddo 2 maalmood ah isku soo diiwaan gali waayaan waana ganaaxaynaa. bajaajada markii 2 maalmood wiilka la wado waxoogaa wado waxa la hayay shaqaysa marka ma yaqaano wadada dhanka uu kaleeyahay. waxaad arkaysaa 2 bajaajo jidka dhexdiisa ku sheekaysanay inta dhex istaagan oo boorti bii qayla iska sheekaysanay. waxa sharciga ma yaqaanba sharci lama barin ka xaysaaliir iska xaysaaliir. waxaad arkaysaa kuwa qaangaar ah inuu bajaaj wado ciddii lagu helo bajaaj seedkeeda aan haysan ama wadada bartamaheeda la dhigay ama meel baakim hay la dhigay lagu helo aydan waa la ganaaxaya. waxaan rabaa in baabuurka seed uu leeyahay waa inuu seedkiisa u barta oo seedkiisa u maraa. ma jidka inta la dhigto 5 bajaaj la iska dhigto laga kala tago oo maqaayada la iska aad ama laga tagaba haddii lagu helo bajaajkaas waa la ganaaxaya. baabuurta lagu baakimo jidadka oo waaweyn ama rarasido ama yeesan sidin waxaad arkaysaa baabuur inta marada loo xirtay jidka lagu xiray baabuurta jiq isugu taalo meel istaagan lahayn
وحتى dadkii lugayna meel maran ay waayeen haddii lagu helo baabuur meel baakin hay taagan loogu talagelin meel baakiman oo baakinkii ka baxa oo wada iska dhax dhigto isagana waa la ganaaxaya waxaana shaqadaas qaban doona ciidamo taraafika ah oo hadda aan sameeynay si degdeg ah u howlgeli doona lama amniga wadooyinka yaa ka shaqo bilaabi doona biri laga bilaabo haduu la yiraahdo baabuurkii lagu helo soo meel taagan aan loogu talagelin baakim asata laba laga qaadaya talabaad baabuurta rarka sita ee baqarada rarka u soo qaada waxaad arkaysaa laba baabuur oo waaweyn oo teleskool dhigay laba baqar oo kala dijina oo meel la mar lahayn ma laga yeelay waxa baabuurta rarka sida 6 subaxnimo ama 12 subaxnimo ilaa 10 galabnimo lama dejin karo waa in isku soo aadiyaan 10 nimo ilaa habeenkii la dejiyaa xilliga ay firaaqada ay leedahay laakiin hadduu subaxdii jidta iska dhax dhigto oo mid inta ku dejiyo laba qaar isku dhagan midba iska xagga dhigo haddii wadadii laba baabuur ay ku egtaa meel la mara saasi ku xiran tahay sida daraadeed lama ogolaa doono waqtigaan uu caayinay baabuurta waa in rarka dejisaa anigu talagalno waa 10 saac بعد العصر إلا هبيك ودي كران تاسنا وباورته وين أو ضد حرته مركز تكو حرته واحد أركيسا باور وضد السلاح لقي أو لغتي هونيك هذا نست لكن معهن ومشي ضد شعب كن برا لو ترجعي باورتنا ما يسكو باست لو ترجعي كاس هدام كو هلنا تلاوش عن قاعد دونا دلوير وعن كعد صنايع ددوينها دقمة بلد وينه عد كسر نبض الدم بوجرته iyagu naftirkoodu waa ku dhibaataysan oo ognahay inaga meel marna weyne sida daraadeed inay la shaqeeyaan ciidamada amniga inay soo sheegaan wixii dhibaato ku haya sida baabuurtan soo sheegnay sida bajaajada dadka lagu dhacayo sida dadka dhacay hadii gacan laga sii kara in laga siiyaan waan ogahay way u guliyeen la qabto ama wax laga qabto laakiin waxaan codsanayaa in la shaqeeyaan ay gacan laga siiyaan inaguna waxaan ku talagaleynaa shaqadaas inay sida ugu wanaagsan aan u qabanno waxaan ku soo ganaanudaya waxaan aad u amaanaya waxaan aad ugu bogaadinaya shacabka degan degmada Beledweyne Hirshabeelle inay nagu gacan siiyaan dad nabad jecel ay yihiin sida daraadeed waxaan ka codsanaynaa inay ciidamadaas ammaanka gacan siiyaan waxaan ka codsanaynaa baabuurta inay la shaqeeyaan oo awaamirta naga soo baxday ay qaataan haddii qaada waayaan haddii talaaban ka qaadayna hadduu Ilaahay yiraahdo waxa jirta magaalada waxa lagu gadaa darooga fara badan magaalada darooga lagu gadaa khamri lagu gadaa xashiish lagu gadaa banji lagu gadaa waxay noo xareysan hal baabuur oo khamri iyo banji noo xareysan oo maalmaha kamida oo caayino aan gubi doono meel fagaara ku gubi doono meeshii ninkii lagu helo asoo khamri gadaya ama xashiish gadaya waxaan geey doonaa maxkamadda awood u leh sharcigan hor geey doonaa waxaasoo wadana waa la wareegi doonaa waana ku maxkamadeed doonaa waana hor istaajin doonaa cid lagu helo waxa kale oo jirta waxaan qabanay geedo la dhoofinayo oo dalkii laga xaalufinayo oo meel loo wada aan la aqoonin oo baabuurta ku raran geedahaas oo ah geedo ku baxa dhul kasta ku baxa oo loogu talagalay dhulka saxaraha ah iyo dhul loogu talagalay baad celin amal ah geedahaas oo la dhoofinayo la guro ilaa boosaas la sheegay laga soo guraa waxaan qabanay qayb kamid ah ciidan ku helno geedahaas ayadoo dhoofinaysa baawurkana waa la wareegina la saaray qofta wadtan waxaan la tigsan doonaa maxkamad awood u leh maanta laga bilaabo hadii la arko geedahaas la dhoofi doono waxaan idin tusi doonaa geedii nooc ay yihiin waad arki doontiin geedahaas cidii lagu helo idoo dhoofineysana ayadana maxkamadan horgeey doonaa awood u leh baawurkii lagu qaado ogolaaday in geedahaas dalka looga dhoofiyana waa la wareegina aad baad u mahadsantihiin shirkina jarinta soo ku kooban yahay wabillahi tawfiiq